magacayga waxaa la yidhahdaa Axmed Cabdullaahi Maxamed waxaana su'aadadana senaaraysta la isugu waca Axmed Kaboole waxaan deganahay magaalada Stockholm xaafadda Spoken Tensta oo ka mid ah xaafadaha dadka Soomaalidu runtii ay ka degaan caasimadda waxaan ka mid ahay xisbiga cagaarka deegaanka sida hadda loo yaqaano Emilia Batiyat waa mahadsantahay Axmed goorma aad markii kugu horeysay waddanka raatid waxaa imid dalkan 2007 ayaa timid dhalinyaro ayaad had waxaad fursad u heshay inaad waddanka wax ku barato sababaha kugu kalifay inaad siyaasadda gasho maxay ahayd runtii 2007 markaan imid fursadda ka jirtay Sweden hore maana ka bilaabin maana helin jaaniskaas sabab la xiriira warbixin iyo information aan ka haystin iyo sababta dalkan oo imid oo aan ahayn markii hore imaanaya dalkan waxbarasho maana imaan dalkan dadka Soomaalidu meel kasta oo dunida maanta ka tagaan waxay u tagaan dhibaato ka soo carareen dalkooda laakiin waxayna ku xirantaa marka sababta jaaniska aad haysato waxay ku xirantaa warbixinta dadkii ka soo horeeyay ka heshay dadkii ka soo horeeyay maana ka helin warbixin laakiin waxaan ku dhacay inaan shaqo bilaabo maadaama aanan waxbarasho hore lahayn baslan ka bilaabay taksiilaan noqday warbixinada ugu fiicnaayo dadku siiyeen waxay ahayd inuu shaqo bilaabo basaa jiro waxa la wada baabuurta looriga iyo waan taladoodii waa qaatay laakiin alxamdulillah ka bacdi information helnay waxaan maaragtay in aan lagu jiri karo sida isbedel nololeed aan sameeyno markiina iskuulaan farmasifi ka soo bilaabay ilaa jaamacadda hadda taan bishan December dhamaan insha Allah Axmed qofku marka uu siyaasadda galiya daaqad ayuu ka soo galaa irid laga soo galay ayay leedahay ama meel buu kaga soo dhacaa ma arrimo bulsho ayaad ka soo shaqaysay ma ururada ayaad ka soo sababaha aad siyaasadda ku soo gashay baahida muhiimka ah maxay qof kasta wuxuu leeyahay wax Ilaahay u dhaliyay oo jecel yahay anuu badanaa waxaan jeclaa arrimaha bulshada ama Soomaaliya aan joogo ama dalkan Sweden aan joogo iyo politikan waan ka shaqeeyay arrimaha bulshada ka shaqeeyay waxaan ka mid ahay dadka ilmaha carruurta Soomaalida markii la qaato qayli jiray waxaan ka mid ahay dadkii barnaamijka qabanqaabinaya waqtigii hadda in Allah xasuustaan ma aqaanay gabadhii xisbiga bidixda ka mid ahayd oo dadka Soomaalida fiidiyowga inta qaybisay dadkii barnaamijyada qaybin ordayay dadka sharci la'aanta dadkii ordayay ka mid ahay ka bacdina siyaasadda waxa kugu dhalinaya markaad dareentid in aadan go'aamadii aadna waxba ku lahayn go'aamadii xaafadiina oo majority dad kale ay maamulayaan waxaas leedahay way annaga aan xaafadeena u maamulay qashinka banaanka yaala maxaan qof kale u raadinayna annaga go'aan ka gaari karna daagiska ilmuhu noo aadaan annaga go'aan ka gaari karna hadduu hilib xalaal yeelanayo hilib xalaal hadduu yeelanayo dareenkaas markaan siyaasadda ay geeyay inaan xaafadda intaan joogno aan wax ka qabano codka dadka ay helaan matalayaal u hadlayna helaan imise qof ayaad kaga tirsantiin xisbiga Emilia Batiyat ee Soomaaliya tira ahaan hadda kuma dhihi karo waa intaas laakiin xisbiga Emilia Batiyatka waxa waaye dad badan oo qiyaas deegaanka hadda aniga ayaa ku jira ma jiraan dad ka horeeyay ama soo galay xisbiga oo meerag ka gaaray ama soo xataa shakhsi ugu horeeyay ee degmada ka soo gala Soomaaliya magaalada Stockholm waxaa jiray gudoomiye hore xaafadda Tensta ayaa jiray laakiin hadda aniga iyo yar kale oo liira Mansuur Jaamac oo runtii kamid ahay dadkii musharaxiintii sanadkii hore oo Lanstii gobolka u socday ayaa jiray aad iyo aad active oo runtii bulshada Soomaaliyeed u shaqeeyay labada naas ayaa hadda tan ku jira anaa markaa waxaan soo galay nasiib u yeeshay degmada soo galo oo kamun filmagtii kamid noqday xildhibaanada magaalada Axmed waxaa taanin dhalinyaro inkastoo aad tahay xildhibaan golaha deegaanka ee degmada laga soo doortay haddana waxaa tahay Soomaaliya inta badan codadku waxa ku siiyay dad Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin dadka Soomaaliyeed ay qabaan ama degmada aad ka tirsan tahay ama dhammaan waddanka oo dhan arrimahaas maxaad is leedahay waxaad ka qabanaysaa sida hadda aan ku sheegay wixii geliyay siyaasadda waxay ahaayeen dareenkaasna waxay ahayd dareen aan la qaybsanayo dadka xaafadda degan xaafaddan deganahay codka waxay siiyay dadka dhalinyarada Soomaaliyeed iyo guudaan dadka Soomaaliyeed oo xaafadda degan waxaana u helnay inay Soomaali yihiin
haddana inay Swedish yihiin xaqna u leeyihiin inay dirsadaan dad matalayaal waxaan sidaas daraaddeed matalaynaa dadka guud ahaan xaafadda degan gaar ahaanna waxaa la fiirinayaa hadba dadka jaaniska yar leh ama waxbarashada ama meelaha maaragtay dhaqaalahooda hoos u hooseeya in dadkaas kor loo soo qaado dadka Soomaaliyeed dhaqankooda iyo in la ilaaliyo carruurtan isdilaysa iyo problemka xaafadda ka jira sidii aan u dejilayn qayb uga noqon lahayn inaan ka shaqeyno sidoo kale tan la soo nooleeyo culture-ka carruurta da'yarta aniga runtii waxyaalaha aan orday waxay ahayd in la soo nooleeyo culture-ka dhaqanka carruurta in la baro oo identity crisis ku dhacday in la baro arrintaas aniga aad aan ugu socday waxa ugu socdo kale trickets arbit inaan ka shaqeeyo in ammaanka inaan ka shaqeyno xaafadeena ay noqoto xaafad markii la yimaado ammaan ah oo qofka uusan aaminaya inuu xaafadiisa la soo aado dharkiisa mobilkiisa iyo computerkiisa soo cabsi ka qabin sababtaas aan u jooga meesha waalidiinta la shaqeynayna ururada degmada la shaqeynayna dadka Soomaaliyeedna waxaa looga baahan yahay siyaasigu wuxuu wax qaban karaa markii uu helo dad la shaqeeya haddii ay jiraan su'aalo qalbigiina ku jira haddii ay jiraan waxyaalaha ay dareemayaan haddii ay jiraan maanta waxaan nahay kanaalkii ku tagi lahaydeen istaasuusa su'aalihiina keensada dhibaatada joogta waan geynaynaa wax kasta oo macquul ah la qaban karana waa kala qabanaynaa hadii alla guud ahaan dalkana sidoo kale Axmed ma isleedahay shakhsiga Soomaaliga markuu xisbiyada ku buuray xisbiga ideologigiisaba ma aaminsana oo xisbigu iskaga biiro fikradaas ma qabtaa kama turjubi karo dadka laakiin anigu waxaan dareeyaa waxaan ka imid Soomaaliya wada socotaa dadka Soomaaliyeedna waxaa la xoolaaley waxaan ku noolnahay xooluhuna waxay ku nool yihiin geedaha geeduhuna waxay ku nool yihiin hawada markaan dalka imid xisbiga cagaarka wuxuu leeyahay geed weyn oo cagaar ah uu leeyahay annagana Soomaaliya waxaan ahay markii nabadoonnada ay fariisanayaan geed weyn badana ay hoos fariisan jireen geedka calaamadan fiiriyay iyo cagaarkaas ku qabtay reebadiye geeleeyna waan ahay saas aan ku raacay xisbiga cagaarkana waxaan aaminsan yahay dalkeena u baahan cilmiga iyo bay'adaas aan baranay inaan aqligaas iyo cilmigaas ku celino dalkeena aad iyo aad ay marka waxaad leedahay ideologiga aan ku doortay xisbiga cagaar waa saas anigu Axmed ahaan waxaan aaminsanahay difaaca deegaanka waan aaminsanahay dalka haddii dhuxusha la jaro la raro waa aragto roobka iyo moogta waxay soo raacayaan geedahaas iyo hawdkaas marka haddii meeshii dhammaan firaaqays ka noqoto ciid badan way guura dabayshay raacay dabayshu markay raacay meeshii gawaan noqon gawaankaas xoolaheena ku noolaanayaan taas waa inaanu helno dad fahamsan difaac ah oo dadka bara in la safe gareeyo koolka oo geedaha la jaray imise qof ayuu ka kooban yahay kamul falmaqtiga degmada xildhibaanka ka tahay wuxuu ka kooban yahay 101 xisbiga numar qof ayuu ku leeyahay 9 hadda waxaad la shaqaysaan xisbiyada alliance hadda xisbiga alliance la shaqeynaa xisbiga social democrat raad garoona la isku dhihi jirana hadda waan yani waxaan fiirinay runtii waxay ahayd go'aan adag go'aankaasuna wuxuu ahaa xisbiga midigta ama xisbiga midigta fog ee la SD si ay usan Stockholm ugu yeelan awood milyan baatid waxay go'aansadeen inay difaacaan oo ay ka tagaan ideology-gooda adkaada inay midtan maadaama ay ahaayeen inay aadaan oo la shaqeynayaan alliance si Stockholm u difaacaan ugu dambeyntii xisbigu wuxuu ahaa xisbiga ka soo horjeestay in la sii wado sartid Apple News sabaha ay xisbigu ku diideen ma noo sheegi kartaa arrintaas adeerta ayaa kaantigu ay Italy hoos ma sii gali karaa waad maadsanta